Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Layaabka Media. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa ilmo yar oo dambiyo waaweyn oo halis ah galay kadibna kusoo barbaaray xabsiga dhexdiisa. Inta aanan barnaamijka u guda galin ka hor, waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto si uu dad badan u gaaro. Aan gudaha u galno barnaamijka. Waxa ugu horeeyay wiilkan yar ee lagu magacaabo David Barom ayaa noqday mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaashii ugu da'da yaraa ee Mareykanka soo maray 1988. Barom oo da' ahaan ahaa 16 sano ayaa hal habeen wuxuu dilay hooyadiisa, aabihiisa iyo labada gabdhood ee la dhashay iyo walaalkiisaba wuxuu ku dilay faas. Booliiska ayaa soo gaaray guriga Barom wayna xireen. Guriga ayay ka heleen meydka qoyska Barom waxaana lagu xukumay 3 xukun oo xabsi daa'in ah. David Barom ayaa laga sii dayn doonaa xabsiga sanada 2040. Wiilka labaad ayaa lagu magacaabaa Craig Bryce ayaa geystay dilkiisii ugu horeeyay isagoo 13 sano jir ah, waana mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaasha ugu da'da yar. Wuxuu dilay hal mar 4 qof waxaana la xiray waxyar ka hor dhalashadiisii 16aad. Craig Bryce muddada maxkamadeynta dambigiisa waxay socotay 1987 ilaa 1989. Craig Bryce ayaa laga sii daayay xabsiga sanadka 2020. Wiilka saddexaad ayaa lagu magacaabaa Branson ayaa galay mid ka mid ah dambiyadii ugu caansanaa ee abid ee ka dhaca dalka Australia. 14 sano jir ayuu kaga qayb qaatay kufsi kooxeed ay kula kaceen gabartan lagu magacaabo Janine Bolden. Janine oo meyd ah ayay kaga tageen meel fagaara ah. Branson ayaa ahaa wiilka ugu yaraa kooxda ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in ah. Wuxuu noqday mid ka mid ah dilaagii ugu da'da yaraa ee Australia lagu xukumo. Branson weli lama sii dayn, waxayna u badan tahay inuu wiligii xabsiga ku sii jiri doono. Wuxuu xabsiga kula jiraa 4 nin oo kula lug lahaa kufsiga iyo dilkaba. Wiilka afraad ayaa lagu magacaabaa Joseph Ligon ayaa lagu xukumay xabsi daa'in ah da'da 15 sano jir sanadkii 1953. Sababta xukunka loogu riday waxay ahayd waxaa la rumaysanaa in Joseph Ligon uu ku lug lahaa dilka 2 qof. Wuxuu diiday dambiga 2 qofood uu dilay Ligon, wuxuuna ku qaatay xabsiga 65 sano waxaana lagaga sii daayay xabsiga da'da 81 sano jir sanada 2021. Muuqaalkeena ugu dambeeya ayaan ku soo qaadan doonaa wiilkan lagu magacaabo Paul Gaidel Jr. sanadkii 1911 da'da 17 sano jir ayaa lagu xukumay dil darajada 2 ah kadib markii uu dhac iyo dil kula kacay nin oday ahaa. Paul Gaidel ayaa noloshiisa inta badan ku qaatay xarunta agoomaha. Paul Gaidel ayaa ku bilaabay noloshiisa bilow xun. Wuxuu xabsiga ku qaatay 68 sano dambiguu galay awgii, waxaana laga sii daayay xabsiga sanadii 1980 ka hor inta aanu dhiman dabayaaqadii 1986. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta. Haddii aad ka heshay ilaawin inaad like saarto muuqaalka. Haddii aad ka heshid mowduucyadan oo kale, qaybta commentiga nagula wadaag. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.